magaalada Burco caasimada gobolka Togdheer taageerayaasha xisbiga mucaaradka wadani waxay ka sameeyeen soo bax ballaaran oo weyn oo laha doorashooyinka madaxtooyada Soomaaliland taageerayaasha xisbiga wadani ayaa waxay ka kala yimaadeen xaafadaha kala duwan ee magaalada Burco waxaana ay leeyihiin calanka orange-ka caanka ku yahay wadani iyagoo sitay boorar iyo sawirada musharaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro wadooyinka magaalada Burco ay si weyn soo buuxdaafiyeen taageerayaasha xisbiga mucaaradka wadani kumanaan qof oo kamid ah shacabka magaalada Burco khaasatan taageerayaasha wadani ayaa waxay iskugu yimaadeen iyagoo ah dhalinyaro haween waayeel jirkooda soo mariyay calanka wadani khayrada magaalada Burco waxaan halkaas lagu soo bandhigay heesa iyo gabay lagu taageersan yahay musharaxa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro in loo doorto madaxweynaha Soomaaliland 2017 fanaaniin ka tirsan xidigaha geeska halkaas waxay ka qaadeen heesa khaas oo loo sameeyay musharax Ciro tadi weeyaan dadku iradalkeeni bulshada u dareeyay ودور وطني ودار عدكدا ودور وطني ودار عدكدا ودور وطني waxaana maanta soo bixi ballaarna ilaaha doorashooyinka wadani ka qayb galay wafti hogaaminayo musharaxa xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani Xirsi Xaaji Cali Xasan maamulka gobolka Togdheer mas'uuliin ka mid ah xisbiga mucaaradka wadani oo maanta halkaas ka hadlay waxay sheegeen in xisbiga wadani doorasho ka sameeyay magaalada Burco ay muujinayso in reer Burco iyo reer Soomaaliland isku raaceen guusha madaxtinimo ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro wadaad ku yiri wardiinta sidaas u saamaa sida ka daayo wuxuu ku salliga nabiga diidanta salliga wala hadlay kulmeelka wala salliga nabiga diidanta war salliga wala hadlay sabab laga hadlaya kulmeelka war Soomaaliland baa lagu tartamaya laga hadlaya dadka wax la kala kulmiyo Soomaaliland baa ku tartamayna xamar waynu kala doonay laba dowladood baynahay maxaad ugu haliilaysaa warleelada kulmiye waa idinka qabanayna waa idinkuusha waxaan ku soo koobaynaa wadani haddii aad hadlo xisbigii saddexaad waa dhiciso u safiiray isagu laakiin dadkiisii waxaan leeyahay ummadii hagga ay raacday soo raacay dina maanta waxaynu doonaynaa inaynu dooranno musharaxeenna Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waxaanu tusaynaa maanta inaanu haad qabiye kaga dhigayno xisbiga kulmiye ee toddobaad Soomaaliland ka soo talinayay ee haddana loo xumaamaday Muuse Biixi Cabdi waxa uu idin imanayaa waa qabyaalad iyo kala qaybin waxaad dooranaysaan dhulkeennii oo barwaaqo laga dhigo beerooyinka loo hagaajiyo soo maaha marka ugu horreysay inaan halkan kaga dhawaaqo in anigu laga bilaabo maanta ka mid ahay xisbigan ay ummadooda isugu timi ee wadani kulmiye wuxuu doonayay hoggaankiisu inuu Soomaaliland qaybiyo oo waliba Burco u qaybiyo musharaxa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo hadal leer u jeediyay shacabka reer Burco taageerayaashiisa waxa uu sheegay in shacabkii Soomaaliland meel kasta ay joogaan codka weydiisanayo isagoo sheegay qabyaalada la dagaalami doono waxaan ahay musharax waxaan Togdheer iyagoo midaysan weydiisanaya codkeeda cod midaysan baan rabaa oo aan baayo galbeed midna ahayna Togdheer waxaan leeyahay waayagnimo badan oo ah khibrad maamul oo ka badan 4 sannadood oo aan ka soo shaqeeyay meelaha ugu muhiimsan laga shaqeeyo oo ay ka mid tahay siyaasadda arrimaha dibadda waxaan ku kalsoonahay aniga iyo ragga ila shaqeynaya inaanu ictiraafkii u keeni karno Soomaaliland waxa uu reer Burco ballan qaaday in kaabayaashii dhaqaale u dhisi doono Burco ka dhigi doono hoyga warshadaha madaarkii caafimaadka magaalada Burcana wax weyn uu ka qaban doono haddii talada waddanka uu ku guuleysto waxaanu yidhi xukuumadda wadani waa xukuumaddii rajada shacbiga Soomaaliland waa xukuumad doonaysa inay midnimo iyo cadaalad iyo shaqo abuur iyo la dagaalanka sicir bararka iyo kor u qaadida nolosha ciidamada iyo shaqaalaha dawladda ku salaysan waxaan kaloo ka shaqaynaynaa inay Burco noqoto xarunta warshadaha Soomaaliland haddii alla ka dhigo
cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciro musharax xisbiga mucaaradka wadani waxa uu ku ganacsaday in musharaxiinta la tartamaysa uga wax ka badbadan yahay Soomaaliland nidaamkeeda horumarineed iyo siyaasadeed oo dalka wax weyn u qabtay waxaan anigu rabaa oo rumaysnahay in kastaan qaaxad tagin inaan qaranka Soomaaliland uga faa'iido badnaa qaar qaaxad joogay oo hagardaamo la joogay laakiin oo dib loo joogay anigu markaan iska joogay ragii aan soo saaray ee mutacallimiinta ahaa ee PhD sitay waa kuwa hareerahayga jooga boqolaal baa soo saaray boqolaal wada dhakhtarraa oo qaar dawladda ku jiraan oo qaar Maraykan joogaan oo qaar Burca joogaan maanta waxaa leeyahay contribution-ka qaranka u qabtay oo ay qaban maanta xilliga ka doonaya markii khudbada cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciro ka jeediyay khayradda magaalada Burco waxa uu socod ku soo maray wadooyinka magaalada Burco